Qisadii cabsida ahayd ee ku dhacday Safiya. Safiya waa gabar ku dhalatay magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn Soomaaliya. Safiya waxay ahayd gabadha curada ah ee aabo Muuse iyo hooyo Faadumo. Aabaheed wuu geeriyooday markii ay jirtay 7 sano. Kadib hooyadeed ayaa ku soo korisay nolol adag. Markii ay caqliyeystay waxay go'aansatay inay tahriibto si nolosha hooyadeed u hormariso. Safiya waxaa u bilowday safar dhibaato badan. Waxay soo martay saxaraha Suudaan iyo Liibiya, sidoo kale bada halista badan ee dhalinyarada badannaga liqday ayay si naf la caari ah ugu badbaaday oo waxay gaartay cariga Talyaaniga. Safiya rafaad dheer kadib waxay ka sii tahriibtay Talyaani oo waxay gaartay dalka Sweden, halkaasi oo ay iska dhiibtay. Intii ay xerada ku jirtay waxay baratay dhalinyaro sideeda oo kale ka soo jihaystay dalka Soomaaliya, qaarkoodna dhibaatooyin aad u daran sheeganayaan. Safiya waxaa laga saaray xeradii, waxaa loo diray magaalo qofna aysan ka garanayn, balse waxay ku faraxsanayd in la siiyo hal qol ayada u gooni ah, halkaasna sharciga wadanka ay ku sugayso. Guriga Safiya la siiyey wuxuu ahaa guri diyaarsan, maadaama sanadii 2008 ahayd. Waxaa guriga dhex yaalay kombiyuutaradii hore ee waaweynaa. Safiya waxay bilowday isticmaalka kombiyuutarkaasi. Waxay aad u xiisayn jirtay inay isticmaasho aalada Baltog oo xilligaasi ahayd aaladaha sooshiyaal meediyaha loogu isticmaal badnaa. Habeen si sayd ah ugu dhafartay isticmaalka aaladaasi ayay hal mar waxay aragtay kursi qolka meel dhinac ah ka yaalay oo dhankeeda loo soo jiidanayo, balse ma aragto cida soo jiidayso kursigaasi. Ayadoo aan fariirsan naxdin darteed kicila ayaa kursigii la soo dhigtay agteeda. Waxay dareentay inuu qof aan la arkayn ku fadhiisanayo kursiga iyo gacan aysan arkayn la soo saartay garabkeeda, laakiin culayska gacantaasi ay dareemayso. Waxaa u bilowday naxdintii u weynayd. Goobtu waa qol cidlo ah, ma garanayso wax Soomaali ah oo ay u qaylo dhaansato. La soco qaybta 2.